Macallinkii hore ee jaamacadda ayaa u muuqday inay ku adag tahay inuu soo jiito qalbiyada da'yarta reer Tunisia ee shaqadoonka ah. Hase yeeshee, 61-jirkan Kais Saied ayaa lagu naanaysaa "Mashiin" kadib markii laga yaabay habka uu wax u maamulo. Haatan waa madaxweynaha cusub ee dalka Tunisia, waxaana doortay dhalinyaro da'doodu u dhaxayso 18 ilaa 25 jir. "Waxaan u hamuun qabnaa hab cusub, oo waxaanu doonaynaa nidaam ka beddelan kii hore," sidaas waxaa BBC-da u sheegay Youssouf Bajou oo ah arday ka dhigta kulliyadda injineernimada. Inta badan way dhacdaa in siyaasiyiin tiro badan ay ku guuleystaan codad badan. Hase yeeshee, Mr. Zelensky iyo Donald Trump ayaa waxaa caawiyay caanimadii ay ka heleen muuqaaladii telefishinada. Jawaabaha uu ka bixiyay shaqo la'aanta ka jirta dalka, maadaama uusan ahayn mid kulamada ololaha doorashada ku saabsan qabta, balse wuxuu safar ku tagay 100 magaalo oo dalka Tunisia ku taala, isaga oo codbixiyayaasha fool-ka-fool ula kulmayay. Mr. Saied xoogag shisheeye ama gacan dibadeed taageero kama haysto, isaga oo sheegay xitaa inuusan haysan baasaboor uu dalka kaga baxo. Marka uu dadka la kulmo, gaar ahaan da'yarta, ayaa waxay weydiiyaan sida uu wax uga qabanayo shaqo la'aanta baahsan ee dalka ka jirta. Waxa uuna ugu jawaabi jiray hab cilmiyeysan, mana uusan ahaynin isla weyn. Fasalladii uu dhigayay Kais Saied ayaa waxaa buux dhaafiyay ardayda, kuwaasoo xitaa qaarkood ka imanayay jaamacadaha kale. Mr. Saied waxa uu diyaar ah qorshe ballaaran oo uu hay'adaha dalka wax weyn kaga beddeli doono, isaga oo sheegay in uu awoodda dalka uu hoos u dhaadhiciyo, isla markaana uu doonayo isbeddel ballaaran inuu ka sameeyo dalka Tunisia. Waa kuma Kais Saied? Madaxweynaha cusub ee Tunisia, Kais Saied, waa barofesor sharciga bartay oo 61 jir ah, waana madaxweynihii ugu horreeyay oo xilka madaxweynenimada qabta ku guuleysta tan iyo markii uu geeriyooday madaxweynihii hore ee dalkaasi, Beji Caid Essebsi, 22-kii bishii Juulaay. Mr. Kais, oo ah madaxweyne madax bannaan oo aanan ka tirsaneyn xisbi siyaasadeed, wuxuu doorashada ka helay 72.71 cod bixinta doorashada wareegga labaad ee la qabtay 13-kii bishii Oktoobar, wuxuuna si la yaab leh uga guuleystay musharaxiin la tartamaysay sida Nabil Karoui oo ah hogaamiyaha xisbiga weyn ee baarlamaanka Tunisia ku leh tirada kuraasta xildhibaanada ugu badan. Taariikhdu markay ahayd 22-kii bishii Febraayo 1958 ayuu Mr. Saied ku dhashay magaalada Bani Khiyaar oo ka tirsan gobolka Naabul, wuxuuna Mr. Saied leeyahay 3 carruur ah. Shahaadada digrii ee koowaad wuxuu ku haystaa sharciga caalamiga ah, wuxuuna ka soo baxay kulliyadda sharciga iyo siyaasadda ee jaamacadda Tunis, barofesor dhiga culuumta sharciga. Sidoo kale ka haystaa sharciga dastuurka, isaga oo jaamacadda Tunis ka ahaa. Wuxuu noqday xogayaha guud ee ururka sharciyada dastuurka ee Tunisia intii u dhaxaysay 1990 ilaa 1995. Waxyar kadibna wuxuu noqday madaxweyne ku-xigeenka ururka. 1990kii, Mr. Saied wuxuu noqday agaasimaha waaxda cilmiga sharciyada ee jaamacadda Tunisia, isaga oo ka mid noqday khubaro jaamacadda Carabta ugu shaqeeya Maxadka Xuquuqda Aadanaha ee Jaamacadda Carabta. Mr. Saied ayaa ka mid ah guddiga khubarada arrimaha sharciga ka caawiyay baarlamaanka Tunisia wax ka beddelkii 2014. Wuxuu mararka qaar ka soo muuqan jiray telefishinada isagoo siyaasadda ka hadli jiray. Markii ugu horeysayna wuxuu TV kala hadlay shacabka dalkaasi, isaga oo ku hadlayay hadal caadi ah oo la xiriira dastuurka dalkaasi. Wixii markaa ka dambeeyayna ma ahayn mid siyaasadda ka soo muuqda.